waxaan idinka soo salaamayaa dalka quruxda badan ee Djibouti. Djibouti waa dhul Soomaaliyeed oo ka mid ah caalamul Carab, caasimadiisuna waa Djibouti. Djibouti's strategic location in the Horn of Africa. Djibouti waa dal qani ku ah dad isjecel oo nabad ku wada nool. Welcome to Djibouti! halkan aad u jeedaan waa meesha labaad ee ugu hooseysa dhulka dunida. waxay muddo 2 saac ah u jirtaa caasimadda Djibouti. waa dhul wada cusbo ah, laakiin tirada dalxiisayaasha halkan aad bay u yar tahay, sababtuna waa aqoonta aan loo lahayn Djibouti. inkasta oo ay leedahay goobo istiraatiiji ah oo awood leh sida Bab el-Mandeb, badweynta Hindiya, gacanka Cadameed ilaa Badda Cas oo ah iridda Afrika laga galo, waxay ka dhigayaan meel quwadaha caalamka ay ku tartamaan inay saldhig ka samaystaan. Foreign military bases. waxaa hadda saldhig ciidan ku leh Faransiiska, Mareykanka iyo Japan. waxaa dhowaan ku soo darsamay Shiinaha, asaga oo ka samaystay saldhigga keli ee ka baxsan gudaha Shiinaha. dhammaan quwadahani waxay ku andacoonayaan inay ujeedadoodu tahay inay ilaaliyaan maraakiibtooda halkan mara. We submitted a request to join the Arab League. Djibouti waxay ku biirtay Jaamacadda Carabta sanadka markuu ahaa 1977 markii ay xornimada ka qaadatay Faransiiska. isla sanadkaas kadib dagaal xooggan oo ay ku qaadeen dadka si ay u helaan xorriyadooda. We want freedom. We want freedom. The people. waa waddan 99% Muslim ah. misaal luqadaad ku hadasha adeer? anigu waxaan ku hadlaa Cafar, af Soomaali, Carabi, Amxaari iyo English. alxamdulillaah. luqadahooda maxalliga ah waa af Soomaali iyo Canfar. waxaa ku nool ku dhowaad 1 milyan oo qof, badankoodu ay yihiin Carab, Soomaali iyo Canfar. Soomaal, Cafar, tani waa dhaqanka Soomaaliyeed xilliyada arooska. waxaan idin muujinay dhaqanka Soomaaliyeed. dabcan waa inaan idin tusnaa kan Canfarta sidoo kale. we have 3 cultures. Arabi, Afari, Somali. We smile together. We eat together. We dance together. Djibouti! 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 Peace be upon you. markan aan u kacno dhanka Yemenida, aan ogaano sida ay ku noqdeen muwaadiniinta Djibouti. waxaan leeyahay sharciga Djibouti. waxaan ku dhashay halkan. Canfar, Carab iyo Soomaali waa hal markii Djibouti la joogo. magacaygu waa Nasri Naasir. waxaan ku dhashay Djibouti. laga yaabaa asalkaygu inuu yahay Yemeni, laakiin waan ka Djiboutiysanahay Yemen sababtoo ah halkan ayaan ku barbaaray. waxaan ku hadlaa af Soomaali, af Carabi iyo Ingiriisi yar. annagoo waddooyinka soconno waxaan la kulannay qaar Yemeni ah oo iska qayilayo. qaadka wuxuu ku siinay tamar, sidoo kale waxaad dareemi xasilooni. waxaad ismoodi dhulka dhan inaad adigu leedahay. hawada iyo badda ayaa ka tallaabaysaa, laakiin markuu dhammaado waxaad dareemaysaa murugo. hal dhinac ayaa lagu cunaa, labada dhinac buuxintooda waa dhib. ma buuxin karto labada dhinac.
uma cunayna qaadka inaan adhigt ku nahay ee waxaan u cunaynaa si aan iskaga saarno walbahaarka aan ka soo wajahno shaqada iyo nolosha. qaar waxay u cunaan nasiino iyagoo badda eegaya oo laarta qaadanaya. qoyskaygu waxay ku nool yihiin Yemen, lacag waa u diraa inkastoo ay ku filnaan, laakiin alxamdulillaah. Yemenidu inta badanaa halkan ayay ka shaqaystaan sababtoo ah mushaarka Jabuuti aad buu uga sarreeyaa kan Yemen. Tani waa xaflad Yemeni ah, sidan ayay dhaqankoodii ugu xiran yihiin marka ay Jabuuti joogaan. Jabuuti waxaa loo arkaa saldhig shidaal. maraakiibta shidaalka sida ayaa ku soo xirtaa. waxay leedahay 7 tekadood. waxay leedahay xeebo aad u qurux badan sida Maldives oo kale. kani waa tareenka Itoobiya aado, wuxuu isku xiraa labada dal. waxaa dhismihiisa bilaabay Faransiiska waxaana dhameeyay Shiinaha. muddo 5 saac ayuu ku tagaa Itoobiya. badeecadaha takada laga soo dejiyay halkan ayaa la iskugu keenaa, kadib ayaa loo raraa Itoobiya. 75% dakhliga dalka waxa uu ka yimaadaa tekadaha, badda iyo kirada saldhigyada ciidanka dalalka kale sida Shiinaha oo sanad kasta 100 milyan ku bixiyo Djibouti.